habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah wali waxa socda raadinta dad loo malaynayo in ay ku waxyeeloobeen dab xalay qabsaday suuq weyn oo ku yaala magaalada Nairobi ee wadanka Kenya in ka badan 200 oo soo galooti ah oo saaran doon badbaado ay maalta qaabishay hogaamiyaasha midowga Yurubna waxay ku kulmayaan Brussels dhibaatada soo galootiga ayayna ka hadlayaan saynisyahano Britain oo soo saaray hab looga hortagayo ugaarsiga mid kamid ah noolaha khatarta weyn ku jira ee adduunka saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen dab ballaaran oo ka kacay suuq lagu magacaabo Gikomba oo lagu iibiyo dharka hudheeda in ka badan 70 qof ayaa dabkaasi ku dhaawacmay wuxuuna bilowday xalay suuqa ayaa ah mid ciriiri ah oo u nugul dabka sida uu maamulka sheegay Sohayba Maxamed Badqas ayaana ka waramaysa dabka waxa uu ka kacay halkan oo waxa ku yilay dukaamo lagu iibin jiray alwaaxyada kadib waxa uu u gudbay dabaqyadan oo dad ay deganaayeen dadka xilliga waa ay jiifeen sababtoo ah saqdi dhexe habeenka ayay ahayd dabkana waa uu ballaarnaa dadka qaarkood waa ay gubteen qaarkood naqaska ayaa ku dhagay oo waa ay dhinteen qaarna waa ay baxsadeen Millicent Acheng ayaa sheegaysa inay ku soo carartay halka ay wax ka dhaceen kadib markii walaasheed ay soo wacday abaara 7 iyo barkii habeenimo markii la joogay 7 iyo barkii ayaa walaashay soo wacday waxay tiri suuqa Gikomba waa uu gubanayaa markii aan soo gaaray suuqa waxaan ayada ku iri kuaway dabkiina wuxuu markaa gaaray halkii ay deganaayeen waxay tiri gudaha ayaan ku jiraa mana soo bixi karo qiiqi ayaana meesha qabsaday cunugana wuu ila joogaa waxaan u tagay ninkii dabaqa waardiyaha ka ahaa waxaan ku iri albaabka naga fur wuxuu yiri qofka guriga leh waa uu diiday inaan albaabka furo oo tuugada ayaa xatooyo geysanaysa cabaar kadib dabaysha ayaa soo qaaday dabkii oo gudaha ayuu gaaray suuqan ayaa sidiisaba ah isku raran dabkana waxa uu badanaa ka kaca xilliyada habeenkii meesha way buux dhaaftay ganacsiga halkanna dadka qaar waxay ku gadanayeen alaab guban karta marka haddii dab yar uu ka kaco si fudud oo degdeg ah ayuu ku faafi karaa ganacsatadana waxa ay u tahay maalin kale oo ay xisaabinayaan khasaarihii soo gaaray waxaan isweydiinaa waxa aan samayn karno haddii dab uu kaco ma garanayo inay koronto tahay mar kasta kan waa suuq caan ah Gikomba lacag badan ayaa halkan aan ku haynaa dad badanna waxay guryahooda aadaan ayagoon lacag la siin waxaan halkan imi 8 saac oo habeenimo waxaan arkay dabkii oo meel walba ku faafaya gawaarida dabdamiskana ma aysan joogin xilliga suuqa Gikomba waxa uu ka mid yahay suuqyada ganacsi ee ugu waaweyn bariga Afrika balse sidoo kale waa mid ka ugu halista badan ee ganacsatada ay ku ganacsadaan haddana dadka ganacsatada ee halkan waxay xisaabinayaan khasaarihii ka soo gaaray dabkii xalay halkan ka dhacay sanadkii tagay isla suuqan 2 jeer ayuu dabka kacay madaxweynaha dalkanina waxa uu codsaday in baaritaan lagu sameeyo balse wax natiijo ah oo ka soo baxay baaritaankaasi ma jiraan dadka ganacsatada ee halkanina waxa ay rabaan jawaab faahfaahin dheeraad ah ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga bbc.com/somali adigoo ka galaya mobilkaaga hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa ku kulmaya Brussels iyadoo si weyn la isugu khilaafsan yahay arrimaha soo galootiga ka soo gudbaya Mediterranean-ka madaxweynaha golaha Donald Tusk ayaa soo jeediyay in go'aanada magangalyo doonka lagu gaaro xarumo ka baxsan Yurub balse qaar ka mid ah xubnaha ayaa diidan in ay qaabilaan magangalyo doonka arrintan ayaa timid kadib markii 7 dal oo Yurub ah ay isku raaceen in ay qaataan qaar ka mid ah tirada in ka badan 200 ee muhaajiriinta ee la soo badbaadiyay Maalta soo gaaray Axmed Xaaji ayaana ka waramaya kadib markii muddo ay ku xayirnaayeen badda markabka badbaadada hadda waxa uu helay cudurdaar
200 oo tahriibayaal dhibaataysan oo saaran doontan waxaa ugu dambayn loo oggolaaday inay maalta ku xirtaan waxaa la socdo ilaalada xeebaha maalta dadkan safarka dheer ka soo galay afrika si deggan ayay u gaareen muddo sannado ah maalta iyo talyaaniga waxa ay ka cabanayeen in inta kale ee EU ay ka tageen dhibaatada la tacaalidda tahriibayaasha hadda waxay aad ugu qanceen inay ku cadaadiyeen inay qaataan qayb ka mid ah mas'uuliyadda caawinta muhaajiriinta hogaamiyaha maalta waxa uu shir jaraa'id ka sheegay in caawintan hal mar un ay tahay waa hal arrin sababtoo ah waa kiis gaar ah haddaba iyadoo dadka ay ula muuqan karto doon kale waa arrin inoo gaar ah maamulka maalta waxa ay dhowr maalmood caawin doonaan soo galootigan ka hor inta aysan u kala dirin dalalka kale ee midowda yurub ee aqbalay inay qaataan talyaaniga iyo maalta waxa ay hadda samaysteen barnaamij u gaar ah tahriibayaasha kulanka EU ee Brusselsna waxa ay ka raadinayaan in la sii joogteeyo barnaamijka bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta aqalka cad iyo Kremlinka Ruushka ayaa wada xaqiijiyay in madaxweyne Donald Trump iyo Vladimir Putin ay wada hadal ku yeelan doonaan Helsinki 16 bisha July ee sanadkan war qoraal ah ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay ka hadleen xiriirka Ruushka iyo kan Mareykanka iyo waxyaabo kale oo la xiriira ammaanka guud tani waxay ka dambeysay booqashadii Arbacadii uu ku tagay Moscow la taliyaha ammaanka Trump John Bolton oo uu wada hadalna kula yeeshay madaxweyne Putin mas'uuliyiinta Faransiiska ayaa baaraya koox garabka midig ee fog ah oo qorsheynaya weerar lagu qaado muslimiinta 10 ruux oo 9 ay rag yihiin midna ay haweeney tahay ayay baaris argagixiso ku socotaa waxaana loo malaynayaa in uu ka mid yahay dadkaasi hogaamiyaha kooxda oo boolis hore ahaa dacwad ogayaasha waxay sheegayaan in ay qorsheynayeen dadkani inay beegsadaan haweenka xijaaban dukaamada cuntada xalaasha imaamada iyo wadaadada xagjirka ah ee xabsiga ka soo baxaya Ghana ayaa mamnuucday nooc ka mid ah kalluunka webiga si looga hortago in uu dilaaco virus sidaasina waxaa sheegtay wasaaradda kalluumaysiga wasaaraddu waxay sheegtay in 6 bilood la mamnuucayo taasi oo bilaabanaysa Axadda suuqa kalluunka Ghana ayaa hoos u dhac ku yimid taas oo ka timid kalluun xad dhaaf ah oo sharci darro ah hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay dawo cusub oo dhiigbaxa ka hortagi karta haddii la siiyo haweenka xilliga dhalmada in ay badbaadin karto nolosha kumanaan haween ah hay'adda WHO waxay sheegtay in 70,000 oo haween adduunka oo dhan ay u dhintaan dhiigbax daran sanad kasta xilliga dhalmada cilmi baarista ayaa sheegaysa in daawadan ay ku shaqayn karto dhulka kulaylaha ah madaxweynaha waddanka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa BBC-da u sheegay in uu ka shakisan yahay koox taageerayaal u ah Grace Mugabe inay ka dambeeyeen isku day dil oo dhawaan dhacay 2 qof ayaa ku dhintay kadib markii Sabtidii uu qarax ka dhacay meel madaxweynaha u dhoweyd xilli uu dalka kala hadlayay arrimaha doorashada Maxamed Xaraare ayaana eegaya wuxuu ku wareegayaa caasimadda iyo dhammaan dalka laakiin Emmerson Mnangagwa noloshiisa waxay geli kartaa halis How are you, sir? BBC-da ayaa kula kulantay xafiiskiisa magaalada Harare 4 maalmood kadib markii uu ka dhacay qaraxan meel isaga u dhow kaasoo ay ku dhinteen 2 qof oo 10 kalena ay ku dhaawacmeen No, not my character. maya dabeecadahayga ma aha inaan ka baqdo waxyaabahan oo kale waxaan ahay askari dhawaaqan oo kale waxaan maqlayay muddo 15 sano ka badan oo aan halkan ku jiray 15 years in the struggle. Emmerson Mnangagwa wuxuu awoodda dalka qabtay markuu siyaasadda kaga adkaaday Grace Mugabe iyo taageerayaasheeda oo lagu magacaabo G40 wuxuu aaminsan yahay in kooxdaasi doonayaan inay dilaan dareenkayga dadka ka dambeeyay arrintan murugada leh waxay ahaayeen G40 waana taa natiijada macquulka ah ee la sababayn karo taasoo uu qof gaari karo xaaska Mugabe kumuusan eedeyn inay lug ku lahayd laakiin shaki ayuu ka muujiyey markii arrintan wax laga weydiiyey ma ku kalsoon tahay Grace Mugabe iyo dadka iyada taageera
ma hubo waxa aad ula jeedo kalsooni ma qofkii iga aflagaadeeyey dhan kastaba waa maxay sababta aan ugu kalsoonaan karo qof isticmaalay Mugabe si uu u sheego waxyaabo aan sal lahayn Emerson Mnangagwa wuxuu ka mid ahaa saaxiibada aadka uga dhow Robert Mugabe xilligii halganka lagula jiray xukunka dadka cad la wareegistii beeraha caddaanku leeyihiin iyo caburintii adkayd ee mucaaradka ha yeeshee tan iyo markii uu militariga xukunka u dhiibay wuxuu furfurayaa siyaasadda Zimbabwe wuxuu ku baaqay maalgashi caalami ah wuxuuna ballan qaaday doorashooyin xor ah waxaad ka mid ahayd golaha wasiirada markii mucaaradka la garaacayay oo la jir dilayay qayb ayaad ka hayd arrinta sidee bay dadku u rumaysanayaan inaad isbeddeshay waxa ay rumaysanayaan waxa aan qabanayo tallaabooyinka aan qaadayo fikradaha ay qabaan maaha markana wararka ciyaaraha ugu waaweyn adduunka aan ku bilaabano ciyaaraha adduunka ee kubadda cagta ee ruushka ka socda Senegal ayaa ka baxday tartanka koobka adduunka Colombia ayaa 1-0 kaga adkaatay Senegal ayaa ka dambeysay Japan waxaana looga qaaday habka anshaxa 2 kaar oo jaalla ah ayayna dheeraayeen Japan ka bixista koobka adduunka ee Senegal ayaa ka dhigan in dhammaan 5tii koox ee Afrika ay ku wada hareen wareegii koowaad Nigeria Tunisia Masar iyo Morocco ayaa horay uga laalaabtay ruushka weeraryahankii hore England Wayne Rooney ayaa la filayaa in uu wareego maanta naadi weyn oo kubadda cagta waddanka Mareykanka ma jiro qarash wareegistiisa ku baxaya balse waxa la rumaysan yahay naadiga uu u wareegayo ee la yiraahdo DC United inay ogolaadeen in ay magdhow siiyaan naadiga uu hadda Rooney la jooga ee Everton heshiiska Rooney lagula wareegaya ayaa qiimihiisu u yahay $13 milyan saynisyahano Britain ah ayaa la yimid farsamo casri ah oo wax looga qabanayo ugaarsiga mid ka mid ah noolaha khatarta ku jira adduunka Pangolin waa xamaaratada kaliya ee adduunka sida sharci darrada ah loo dhuumaaleysiiyo waana qaali koox ka tirsan jaamacadda Portsmouth ayaa la yimid hab lagu ilaalinayo oo farsamada gacanta dadka wax looga qaadayo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana ka waramaya haddii aad doonayso inaad aragto wax qayral caadi ah isoo dabagal albaabkan waa xayawaan dhif iyo naadir ku ah adduunka waxaa loo dilaa dalab tuuga ayaa lagu dhoofiyaa laguna iibiyaa laakiin maanta waxa aanu u nimi inaannu aragno hadhaaga xayawaankan bangoliinta ah uma eekan wax badan laakiin waa qaali waa xayawaanka loogu ugaarsi badan yahay adduunka dadkan oo dhan waxay rabaanuun inay lacag helaan markaa dadka lacag yar baa la siiyaa iyagu soo ugaadhsaday xayawaankan dila dabeetana dad kale ayaa laga sii iibiyaa waa xayawaan xamaarato ah hilibkiisu aad ayuu u macaan yahay malaayiin ka mid ah ayaa shiinaha dawa ahaan loogu isticmaalaa mid ka mid ah ayaa 5tii daqiiqaba la dilaa booliisku way dadaalayaan laakiin waxa ka maqan wixii ay ku ogaan lahaayeen dadka ugaadhsada laakiin hadhaaga xayawaankan ayaa rajo abuuray waa markii ugu horeysay ee adduunka lagu isticmaalo markii ugu horeysay saynis yahano Ingiriis ah ayaa ka helay calaamadaha faraha aadanaha sidana way uga heleen si adag u qabo waa kaas balastar dareere xabag leh ku qabo ka fuji iskaanka geli dhexdana waxa ka muuqanaya calaamadaha suulka aadanaha oo ay ka muuqato naqshadda suulka oo faahfaahsan waxay isu keenaysaa ugaarsadihii iyo la ugaarsadihii dareerahan xabagta ahi qaali maaha ilaalada duurjoogta way ku isticmaali karaan kaynta inkasta oo tiknolojigani cusub yahay laakiin wuu ka casriyeysan yahay kuwii hore saynis yahanadu waxay rajaynayaan inay ogaadaan dambiilayaasha ka dambeeyey waa tiknoloji cusub laakiin ma lagu badbaadin karaa xayawaan sii dhammaanaya ugu dambayntiina Waris Cream waa wiil 11 jir ah oo sawir gacmeedka xariif ku ah hal abuur gaar ahna leh qol ku meel gaar ah oo ku yaala xaafadaha saboolka ee Lagos Nigeria ayuu ku bilaabay sawir gacmeed aan caadi ahayn ayuuna sameeyaa Waris waxa uu bilaabay farsamadan 6 jir markii uu ahaa 8 markii uu gaarayna qabiir ayuu noqday waxa uu noqday qofkii ugu da'da yaraa sawir gacmeedyada qabiir ku noqda waddanka Nigeria wararkan iyo kuwii ugu dambeeyay waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbc.com/somali muuqaallo iyo sawirro kala duwan waxa ku saabsan wararkeena aan ka shaqeyno waxaad ka heli kartaan BBC Somali Facebook ha hilmaamin waxaad sidoo kale nagula soo xiriiri kartaa aniga asxaabtaba barteena Twitterka @BBC Somali intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena caawa aad ku mahadsantihiin daawashadiina intaan kulmi doono waxaan idin leenahay nabad gelyo